Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome everyone to my channel. Fadlan haddii aad channel ku cusub tahay waxaan kaa codsanaya inaad subscribe dhahdo. Channelkan aad iyo aad baad uga faa'iidi doontaa. If you guys want to learn English, please welcome to my channel and do not forget to subscribe for more awesome videos. Insha Allah in this lesson waxaan rabaa inaan baro sida dadka loo salaamo adoo adeegsanaya luqadda Englishka. English greetings ayaa la yiraahdaa. Marka sida dadka loo salaamo adoo adeegsanaya luqadda Englishka. Ee soo dhawaada. Okay asxaabi, welcome back to the lesson. Marka asxaabi laba qof wala kulmi doona insha Allah. And this is Suhaib. He is going to meet Hana. Kan waa Suhaib wuxuu la kulmi doonaa Hana. And waatan gabadhii kale Hana. Gabadhan waxay la kulmi doontaa Suhaib. Way wala sheekaysan doonaan iyagoo adeegsanaya luqadda Englishka. And this is Hana. She is ready to meet Suhaib. Tani waa Hana. Waxay diyaar u tahay waa diyaar inay la kulanto Suhaib. Ayay diyaar u tahay inay la kulanto. Okay, marka hore saad aragtid qof English ku hadla oo rabtid inaad salaanto, waxaad ka oranaysaa hi amba hey amba hello. Waa saddexda mid waad ka oranaysaa amba hi amba hey amba hello. saddexda waa la adeegsadaa, saddexduba dhib ma lahan. Kadib waxaad ugu jawaabaysaa markuu qofku ku dhahdo hi amba hey, waxaad ugu jawaabaysaa adiguna hi amba hello amba hey, intaba ugu jawaabi kartaa, dhib ma lahan. Marka qof la kulanteed hi ka tiraahdo amba hi, waxaad ugu jawaabaysaa hi amba hey, labadaas waa isku midkii. Kadib intaa markaad daafno maxaa ku xiga, qofka wuxuu ku oranayaa how are you, sidee tahay. How are you? Sidee tahay? I am fine baad ku oranaysaa. Thank you. And you? Waan fiicanahay, I'm fine. Ee adiguna sidee tahay? I'm fine, thank you. And you? Waan fiicanahay anigu ee adigu sidee tahay? Kadibna waxaad ku oranaysaa qofka what is your name? What is your name? Magacaagu waa magacaa amba magacaagu waa maxay ama magacaa. My name is Hana. Magacaygu waa Hana. And you? Magacaygu waa Hana. Adiguna magacaa. Kadibna waxaad ugu jawaabaysaa my name is Suhaib. My name is Suhaib. Marka waa magaca intaan qaybsan. Kadib markaa intaa kasoo koobnaa waxaa ku xiga markaad si wada sheekaysatiin waxaad ku oranaysaa qofka, waxaad ku oranaysaa nice to meet you. Kulan wanaagsan. Nice to meet you. Qof kale wuxuu ku oranayaa nice to meet you too wayna u raacisid sidoo kale. Nice to meet you too sidoo kale. Kadib waxaad ku oranaysaa qofka where are you from? Xagee ka timid? I am from Somalia amba I am from Ethiopia. And you? Somalian ka yimid. Adiguna xagee ka timid? And you ay raacinaysaa adiguna. You waa adiguna. Kadibna waxaa ku xigi doonaa what do you do? Maxaad samaysaa ama maxaad ka shaqaysaa? What do you do Hana? Maxaad qabataa oo kale? I am a teacher. And you? Macallimad baan ahay. Adiguna maxaa tahay? And you? Adiguna. I am a student. Arday baan ahay. I am student. Arday baan ahay. I am student. Okay baad ka oranaysaa that is nice. Okay, taas way fiican tahay. It's nice. Way fiican tahay. Ayaad ugu jawaabaysaa. Kadibna waxaa ku xigi doona how old are you? Imisa jir baa tahay? How old are you? Waxaad ku oranaysaa qofka I am 25 years old. I'm 25 years old. And you? Shaylaatan baan nahay. Adiguna imisa tahay? Lessonkii hore waxaan tusay qaabkan English numbers loo barto. Go back to my previous lesson. Kadibna xaggaas ka baran karto numberska Englishka. I am 20 baad ku oranaysaa. Aniguna waxaan ahay 20.
but you are young Suhaib. waad yar tahay. Young waad yar tahay. kelmadda young waad yar tahay. markuu qofku ku idhahdo I'm 20 waxaad ku oranaysaa waad yar tahay. You are young baad ku oranaysaa marka. kadib maxaa ku xiga do you speak English hana English maad ku hadashaa ma taqaana English ama English ma kastaa waxay ku oranaysaa a little bit and you a little bit and you amba a little bit and you wax yar baan kasaa ee adiguna me I speak English anigu English waan ku hadlaa me I speak English waan ku hadlaa waxay ku oranaysaa marka wow that's nice wow way fiican tahay marka a little bit waa wax yar amba in yar kadibna waxaa ku xiga don't worry hana hawlwelin buu ku yidhi hawlwelin hana don't worry waa hawlwelin don't worry hawlwelin why bay ku tiri why waa sabab waayo maxaan welweli waaye I will teach you English buu ku yidhi English ma ku bari doonaa I will teach you English I will teach you English thank you so much way faraxday thank you so much waad mahadsan tahay aad iyo aad waad mahadsan tahay no problem dhib ma lahan amba waa caadi no problem now waxaad ku oranaysaa I have to go busy baan hayaa I have to go now see you tomorrow hadda waxaan rabaa inaan socdo waa inoo beri now I have to go waxaan rabaa hadda now waa hadda inaan socdo see you tomorrow kadibna waxay igu jawaabaysaa okay bye see you tomorrow haye salaama waa inooyo beri marka cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa sida salaamaha ama greetings in English inshallah English waan bari doonaa please but don't forget to subscribe to our channel for more videos in the next video maalin walba video masha Allah isku dayi doonaan soo upload gareyno inshallah English waxaan rajeynayaa inaad bil gudeed ku baratiin if you are like committed if you are passionate haddaad serious tahay if you're serious about it you will learn English don't worry okay and I will teach you so please do not forget to subscribe to my channel for more awesome videos and don't forget to like make sure to comment see you in the next video take care bye aad baan idin salaamayaa dhammaantiin